sida ari dayacan weera galay daacista u laaya daribta iyo baruurtooda shilista cawada u looga shisheeyaha damaaciga xun wada yuu ifkaba daaqin dugaaggaana cunay kuma imaan duulan iyo xooge dusha calamiskaad waxa ku furay dib isku weydii. bismillaahi raxmaani raxiim. waa abwaan cabdulaahi cabdi faadhigo iyo tixdii calmiskood oo difaaca Puntland tanbay noqotay dooxada Puntland inaan difaacdaa weeye. waxayna oranaysaa sida tixdaani: ayaamahan dadkaygow ma tirin deelka maansada oo suugaanta inaan daayay bay doqontu moodaya ha yeeshee waxaan uga dibdhacay waa dahsoon tahay ee durduraan go-ayn baan ahay iyo diiqaliyo kale ee qarannimadu goortay duntay ee la isku dacareeyey goortaan isdooxnay ee bulshada daqarku saameeyey dihaalka gaajadu markuu dubayay jiirkeenna duruufaha shallaytida markaan wada jirkii doonnay dib u curashadii baa naxligu nooga soo degayay wax kastoo daraansha ah waxbaa kaaga sii daranee xasan bay u doorteen hankaan daadahayn jiray. xamsana waxaa dallaal looga dhigay magaca daarood qaran aan dugsado iyo markaan dowladnimo waayey danbay noqotay dooxada Puntland inaan difaacdaaye haddaan shalay siciid diriirsanayn waa la duubnaa. dadka reer Puntland oo dhacdadu igama daahnayn dubaaqiisa kuma wiirsan karo daaci magac weyn deeqdaan mulkiyey iyo murtida daararka ii jiifta doorkan lahaa iyo xigmadan lama dalaabeen daleelna ugama tegin waajib iyo doorka aan galo damiirka iyo qabkaygii ma dhiman diranaan jiray cabsina ugama daanshoon xaq aan dow u leeyahay runta daahan waa inay khalqiga wadar u deeqdaaye dalagabay dabuub iyo tix iyo xaajadani keentay oo caarif waayuhu dabreen diirka ka caddeeyey oo hadalka lama daaliyee duugga hari doonta la dalaabay waayuhu siduu ii dalleensaday dareendheerihii caaqilka hadalku deeqaaye duca qabe siciid baan lahaa duxuga sheekeeya waa aragti diimoon xogtan ku dulmarayaayo walaalow dushay iiga taal diifta aan qabo oo anigiyo duryaadkan dhalay bay daraan yahaysaa haddaan bari dildila aar lahaa dacawo laymoodiyo dayax sidii haddaan nuuri jiray haatan doorsamay waxa dararta faadhiga xallilay waa duruuf timide anoo dalagsan baan luudayaa dalal shisheeyaad waxbana laguma daalo oo xarfaha waa dabrahayaa ee onkodkii dawaaraynayaba duluucdu waa meele daliilkan ku dhaartiiyo sharciga dacaaladiisii iyo dariiqu u lahaydeen inaan madaxa daalshaayay haddiise aan docdaydii gabay iyo weedha duumisteeda cafis baan dalbaday iyo inaan daynta bixiyaay dad israacsan shacab diiran iyo madax dadaalaysa dumarka iyo raggiinna iyo xitaa culimadii diinta isku duumidiinniyo qabkaa door ku noqoteen danab iyo gallayr iyo hilaac amase duufaanba daraawiishta iyo booliska iyo daafic iyo xoogga dable dhiiran alifle aan dib dhicin xarig la door qaatay isbatoore diin iyo dal iyo dad u shaqaynaya xidigliya labaalaha ku filan dooyad iyo weedha kabtan daaragtara iyo kornayl miciida deelaystay iyo janamo kaartada deja oo daaciflaha aara kuwa maanta loogu diirsaday oo cadowga daaneeyey geesiga naftiisa u daldalay duugga noloshiina darajo iyo biladowow qalmaan doorarkii baxaye darajo iyo biladowow qalmaan doorarkii baxaye daafaha dhulkeenniya haddaanan dunida gaarsiinin amase aanan xaqiinnii dadnaadiirka ka caddaynin dallaal iyo malaal kama duwani dayn xun kaa gala ee kiinii la dilo waa inaad darar ka qaadaan. sida ari dayacan weera galay daacista u laaya daribta iyo baruurtooda shilista cawada u looga shisheeyaha damaaciga xun wada yuu ifkaba daaqin dalluun iyo ninkii bohol galaba geysku ha u daato dukun daakun jeer ay noqdaan jiifka wada diida. bulshadana waxaad uga digtaan damaca shaydaanka diintiiyo dadkeenniyo dalkiiyo dunyadiiyo maalka docda eebba nagu beeray iyo dhul iyo deegaanka daliilkiiyo kitaabkaana faray inaan difaacnaaye jinsigaaga lama duudsiiyo iyo duniya liishiiya adinkoo duq ubadkiisa oo dayr ka wada foofay oo warasadii doombiro iyo ubadkii daarooda adinkoo
alliya xaqa ku doodaya adinkoo duruustii bartiyo aayadaha diinta ummad yahay dallada waajibkiiyo faralka daaweystay adinkoo dantiina u socda iyo duuga noloshiina dulli lama ajiibo iyo kufrigu waxay dalbayaane dadka reer Puntland oo halbaan idin dareensiine shan halow dabuubtaydu tahay dib isku weydiiya ummad waliba waxay doorataa daayin mudayaaye diidkiina niman loo waxshiga doonayaa jiree dugaaggaana cunay kuma iman duulan iyo xooge dusha calamiskaad waxa ku furay dib isku weydii Soomaalidu dunuubtay gashay baa loogu dowgalaye digta qarucu waa shalay xaqay doodsinahayeene nafsigii dawaaraynaya maanta soo degay haddaan hadalka deeqsiin lahaa dayiba maayaane dawankooda dhagahan maqlayn dooda aan iliyo durdurniciyo waxay fuqsadeen muriya deebaaqe dawarsadaha anigaa dhul kale damacu gaarsiiyey dambiile iyo ninkii keenay baa nooga sii darane inaan daalinkii weli la qaban dib isku weydii badda dayran xoolaa ku jira dunidu goobta dowlada shisheeyaa la tagay degantidiinii damiska iyo shiriidkii la guray dahabigaha daribta iyo nabcada aad hesheen duul kala dhacay maalka dayacan iyo hantida dayiba maysaane daleeshu shisheeyuhu ka helay dib isku weydii nasab lagu dureeraa jira iyo duniya liileer khaatumada dirirtiyo ku timid duubnidiyo xoog iyo maakhirka diidano qaarbada cal joogo doodaas hartigu waxay rabtaa dib u heshiisiin dawadooda inaad raadisaan dib isku weydii Soomaalida dirkeedan lahaa daris walaaleey awal bay dalaan aan waxgeyn darajo siiyeen hawiye iyo daaroodka waa la isku dirayay dagoodiyo dir iyo miriflahan wada jir diidayne Soomaalidu waxay doonayaan dib u heshiisiin qarannimo si loo dooni karo dib isku weydii. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.